coronaviruses waa tiro kala duwan oo fayrusyo ah taasoo sababi karta xanuun uu qofka u dhiman karo. Viruskan waa noocii ugu dambeeyay ee noocyada uu ka kooban yahay virusyada loo yaqaano coronaviruses. Viruskan hadda bilowgiisii ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka China waa noocii saddexaad ee virusyada coronaviruseska. Coronaviruseskaas waxaa ka mid ah oo horey dunida u soo maray MERS coronavirus, 2 SARS coronavirus iyo 3 novel coronavirus oo ah midka hadda dunida ku cusub. Dhammaan coronaviruskan waa fayrusyo bini'aadamku uga yimaado ama uu ka qaado xayawaanada. Novel coronaviruskani oo ah midka hadda dunida ku cusub waxaa loo kala qaadi karaa agmarida qof qufacayo ama hindisayo oo virusku hayo. 2 taabashada meel uu virusku leedahay. 3 toos inaad u taabatid qof qaba viruska. Sidaa awgeed astaamaha viruskani ee ugu waaweyn oo lagu dareemo waa sida tani: 1 qandho, 2 qufac, 3 hor xanuun, 4 neef qaadashada oo qofka ku yaraato, 5 iyo nooc lala xiriiriyo matag iyo shuban. Sidaa awgeed sida viruskani looga hortagi karo ama oo qofka bini'aadamku iskugu dayi karo inuu isaga taxadiro waxaa ka mid ah 1 gacmaha oo si wanaagsan la isaga dhaqo, 2 ka fogaanshaha taabashada indhaha, sanka iyo afka intaad awoodid, 3 xirashada face masks haddaad soo booqanaysid qof virusku hayo ama aad tegaysid meel dadka ay ku badan yihiin, 4 inaad ka fogaatid u dhawaanshaha qof virusku hayo.